Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray fagaaraha midnimada qaran oo horey loo oran jiray xarunta ex-baarlamaan. Munaasabada xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kala duwan. Fagaaraha oo aad loo qurxiyay ayaa waxaa maalgeliyay maamulka gobolka Banaadir, waxaana loogu talagalay inay ku nastaan shacabka Muqdisho iyo dalxiisayaasha ka yimaada dalka dibadiisa, iyadoo lagu soo bandhigay heeso qiiro geliyay mas'uuliyiintii iyo dadkii goobta joogay oo ka hadlayay midnimada iyo nabadda oo ay soo bandhigeen kooxda onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo daafurka ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani qayb ka yahay mashaariicdii faraha badneed ee loogu talagalay in la furo intii lagu guda jiray maalmaha toddobaadka xorriyadda dalka, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay u leedahay shacabka gobolka Banaadir. Waxaa sharaf noo ah maantay inaan halkaan isugu nimaado annagoo xaqiijinayna ama ka marqaati dhigayna shaqooyinkii la qabtay muddadii koobnayd ee la soo dhaafay. Runtii waxqabadyo badan oo la fuliyey ayay qayb ka tahay xarig jarka goobtan la yidhaahdo ex-baarlamaan, laakiin hadda loo bixiyey barxadda midnimada. barxaddan midnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha burburay ee dib loo soo dhisay, kuwaasoo qaarna la xarig jaray, qaar badanna ay noo dhiman yihiin. xarig jarka waxyaabahaas oo dhan waxaa loogu talagalay isbuuca xurriyadda, balse waqtiga oo kooban darteed ayay suurageli weysay dhammaan. Inta noo hartay maalmaha soo socda ayaan xarig jari doonaa. Waxaan maantay ugu talagalnay waxqabadkan oo ah qarash bixintiisu maamulka gobolka Banaadir, fulinta hawsha oo runtii aad iyo aad ay uga maanan yihiin waa wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed. Runtii waxaan uga mahad celinayaa muddada aad u kooban oo ay soo bandhigeen waxqabad qurux badan. howlaha kale ee u yaala wakaaladda oo aan ka soo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo si rasmi ah u furay fagaaraha midnimada qaran ayaa ku dheeraaday ka hadalka midnimada iyo nabad ku soo dabaalidda dalka. Daaldega 60 guurada maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo aynu isugu nimid daartii midnimada, astaan u ah midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee 60kii hana qaaday. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu amray in daartan laga dhigo si loo xasuusto midnimadii ummadda Soomaaliyeed. barxadda midnimada oo ah beer ay ku nasan doonaan dadweynaha gobolka Banaadir iyo sidoo kalena dalxiis u iman doonaan dadka daneynaya inay arkaan 60kii daartii midnimada halkay ahayd, soo booqdaan, indhahooda ku arkaan. maanta waa inoo dhammaystirantay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waa inaga daah furnay, si rasmi ah u furnay. waxaan soo marmarnay fadhiyada kala duwan oo ina xasuusinaya mataanaynta koonfur iyo waqooyi iyo magaalooyinkii koonfur iyo waqooyi iyo mid waliba mid mataane ku tahay oo lagu ballamayo Gabiley, Dhuusamareeb, Muqdisho, Hargeysa. marka waxay tusaysaa 7 magaalood ugu yaraan oo koonfur iyo waqooyi oo ay dadku isugu imanayaan in leeyahay halkaasaan fadhiya. waa xasuusin daayirteena iyo bulshooyinta la xasuusinayo in midoogaasi dhacay, mid nahay, ummadda Soomaaliyeed isu hilowday, wada jir tahay, 60 sano kadibna dib isugu soo hiloobayso, wada hadallo midho dhal ah oo la isugu keenayo, midnimadii dib loogu abqaalayo, loogu yagleelayo, loo meel marinayo ay hadda socdaan. madaxweynuhu hormuud u ahaa aan ka wada warqabnay. haddana gudiyadii farsamada hawlahoodii galayaan. marka waa guul weeye 60 sano kadib, guul taariikhiya weeye. waan u hambaleynayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir gacantu ka geystay in
dib loo habeeyo daartan. waxaa kaloo u hambaliyeynayaa General Bashiir maareeyaha hay'adda dhismaha iyo wasiir maareey iyo guddidii dabaaldega oo shaqo badan goobaha taariikhiga ah aynu dib u furnay ka qabtay. waxay runtii xasuusisay maansadii maxamed ibraahim warsame hadraawi ee ahayd Muqdisho iyo Hargeysa muruq iyo laxaadkan kala maarmi. Jamaal Cabdinaasir, warbaahinta gobolka.